waxaan maqlay nin oo heesa ahaa inuu heesii ka baxay culimada ay ku farxeen biiko mu aha magaciisa BK maxaa BK oo Soomaaliland Soomaa Soomaaliland hargeysa jooga xageesu ku nool yahay hadda wuxuu ku biiray xidigaha geeska hadda ku biirma wax xidigaha xidig ma garanayo almuhim xidig ma garanayo xidigaha kuwa cirkoodan garanayo kuwa maxay ku almuhim aan ka gudubno xidiga dhulka yaala jirnaa almuhim waxaan maqlay marka meesha waxa iga soo baxay ninkaas oo waxaan maqlay inuu hees ka baxay waan ku faraxnay toban markii uu soo gaaray haddana waxaan maqlay inuu ku noqday duqso labto markuu ku noqda waxa la yiri marka wareysi uu bixiyay wareysigan dhageystay marka wax weyn iga soo baxay horta kuma faraxsani inuu heestii ka soo baxay oo Ilaahay dartii uga baxay inuu dib ugu noqdo horta kuma faraxsani shakhsiyan aadan ugu xamaad Ilaahay tabaaraka wa taala haadiyo laakiin waxa iga soo baxay wuxuu yiri hadalkiisa markaan dhageystay wuxuu yiri waxaan isu maleynayay dadka ugu dambiga badan inaan ahay markaan heesaha ku jiray markaan ka soo baxay waxaan ogaaday inaan dadka ugu dambiyar aan ahay arinkaasi waa runtii waa arin in lagu fikiro u baahan aniga والعلم عند الله dad iga darana arkay u dhahay oo iga dambi badan aniga markaan arkay dad iga dambi badan inay joogaan heesayaan iskaga noqdo dhaw aniga hoosayaan iska wata marka waxyaabo uu miisaal uu bixiyay laba mid ka dhageystaan wuxuu yiri dad kaadimi badan waa kuwa lagu yiri wuxuu yiri dadka ribada cuno wuxuu yiri dadka xanta nin darad dhalinyaro Soomaaliyeed meel ka kareysan madow ah oo iskhilaafeen dhalinyarada dad wadaaday ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed meel ka kareysan way iskhilaafeen adi waa la xumeeyay wuxuu yiri wax qamiis qabo ayaa ugu nacba u dhahay aragooda xataa subhanallah awal waxaan ka aaminsan u dhahay qamiiska inuu wax kale yahay marka ninkan yaa suudad oo heesa iskaga dhax jiray culimo soo dhax galay taban Allahu a'lam laakiin waxa u maleeyay in nin culimo ah oo nin kale walaalkiis culimo ah wax ka sheegay inuu arkay oo yar dib u booday aan u maleeyo cilmu inda Allah waayo dad qof caadi iscaayna hada aragto shay basiit laakiin dad culimo ah oo in lagu daydo oo qudwa ah yani warasatul anbiya in dadka sabab u noqdaan inay diintii iyo maxabadii islaamnimadii iyo iltizaamkii dib ugu noqdaan waxyaabaha keenaya Allahu a'lam nin hadda kor culimo reersay sheegi jiray dasho u kaadiyay maxaa dhacay maxad soo kaadinaysa war culimada wareerso meelan aadna ayaan garan inta u kaadinayay sadarte marka wal ilmu inda Allah laakiin dadka culimada lagu soo hiranayo runtii oo dadka ay soo qasdayaan waa ka naxaysa markaad aragto waxa ma la kara hatta hadii uu arkay culimo isaysato ama culimo xamanaysa ama culimo يعني dad culimo maanta aan ku culimo lama dhigi karo dadka wax xamanayo kale iska magacay iska xambaarsiin inuu noqdo ma ahan horta aslan waayo waxa ka tagitaanku ka tagay li ajli Allah oo ahaa ilaahay isma bedelayo subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu meel wariba sidoo ahaa oo ahaana oo ekraan wanaagiisa sidoo soo ahaana idan إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي ندد ما قدر رستو ندد ما قدر رستو ندد ما بدل إلا إنس بدلان مويان مركب بيك ما إنه صون نقطة كصون نقطة جدك وناك سنة ما أهين وحن ويرا إن شاء الله تأكل كي إنه لقي سنة رجينا إنه دب صون نقطة وما دام إلهي درتي ويري دد بدن وقدين لها وإلهي درتي ليه لها وعم جان جاري لها إنه هدنا أركان ninkii oo saaxiibkooda ahaa soo noqday inay ku sii adkaystaan booskoodii san u dhicin marka waxaan soo baxday noqosho ma jirto shayga ilaahay dartiisa looga tago in laga baxay in ilaahay u imaatay ilaahay wax ka fiican loo noqonayo ma laha marka taas waxaan nabiga wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min ilaahay dartiisa waxa uga tagtay ilaahay baa ku bedelayo marka ilaahay wax weyn ku soo wado inaad ka tagto aan ka xumahay munaasab ma ahan laakiin dhaqan xumadaasi oo laga yaabaa in uu ninkaasi la kulmay oo si dib sabab uu noqotayna dadka diinta sheeganayo runtii sheekh Abdullah Yaxya inta daan ku sheego dhalinyarada iska la baashaala oo iska la fadhiistaan maraan la hadla markaas waxay isku ittifaaqeen
baniyo nin wadaado hadana kaftamayo maba aragnaba anag wadaad hadaan aragnaba isxirxinayay asaga dhanba waa nooc kale oo waxa weeyaan asaga kaligiisa salaamu calaykum salaantaas wax ka badan hatta marka salaanto wuxuu ku leeyahay war yaa suuqa in salaama maxuuya intaas ku isku naqaana maxabba laho furfurado wala ma kaaga ridina liajli hada nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo daacigi weyna aha qudwoonoya waxaa dhici jirta nabiga in nin uu hortiisa soo istaago dhalinyaro uu yiraahdo yaa rasuulallah zinada iyo fasax intaas kuma imaanin ilaa xalaalay iyo banay oo dhaha raxmadiisi ayuu ka dhaxday mooyaan ma dhihileen duu ahaan laha qadan gharida qalb duu ahaan laha waxaas kama suurtooyin marka nabiga qudwo noo yahay qudayshoo noo yahay marka in dhalinyaro la baashaaro dhalinyaro la fadhiisto foodaasan la arkin qalbigooda la fiiriyo in Allah la yandur ila suwarikum lawaani wax loo sheego la soo jiido salaad lagu hanuuniyo هذا مثلا halqasan ku soo khatima dadka quraanka saaro wadanka ma sheegayna hada si aan lacala wacasa wadanka caado sheekh wadanka boqol Soomaaliya ku nool almuhimsan oo asturno gabadh ay imaatay sodonta dabajira waxtiri quraan saara raba dadka xanuunsanta oo wareersanahay dib badan ay sheegatay isbitaalada loo xalin waayo waxaan ku yiri ma tukata waxay wallahi sheekhow salaada waa galab طيب iska dhaafa salaadaha kale maanta subaxdan fajr ma tukatay maya duhur ma tukatay maya subhanallah asrna uma jeedo inay tukato waxaan ku yiri san hadaan ku socoto soo ilaahay ku macroonayo ugu dambe waxaan ku yiri adoon tukanin quraanku ma saarayo orod soo isqaado fajrkiina tuko maghrib duhurkiina tuko ilaahayna u toobadkeen iisoo markaasan quraanku saara way faraxday oo soo tukatay wallahi daa yahya wajigi igu qaabishay oo madooba markay toobad keentay wajigeedu wuu ifay ayadoo bedelan bay imaatay farxsan maalinta labaad ay soo noqotay dadkii ehelkeeda la socday oo ii sheegay salaadii way bilowday alxamdulillah way fiicnaatay wallahi khayr allah ku siiyana kana waa dareemayna nuurkaas wajigeeda ka baxayo waxa kada idan hadaa marka banaanka ma tukatay ma tukan iga tag haday aan leed gabar taaruk salaada tahay qof salaad ka tagay gaala tahay diinta dhan kuma jirtid qofkaas cadaawadu qaado dacwada اسلوبه rabta ويعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه الحسنه marka ilaahay tawfiiqana waafaqiyo amiin ya rab badana waxay u cararaan diin la amahan diintu way jecel yihiin waxay u cararaan tacaamulka xun lagu la tacaamul diintii loo adkaynayo wax kale looga dhigo جزاك الله خير إن شاء الله جزاك الله خير الجزاء أدب وما سين شيخ حسن الواجد فرينتا أيضا ضمان بوشد إني قارتها رجينا كي أتكي والو أتكينا يا مركا النبي وحولي جري يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا تذكر أبي شاري يسن كقل عرري هلوفوا يعني لقوا عسلين بولي جري وحسات ربي والسلام عليه إن شاء الله دعوة خير كأن لغاتنا رجينا وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.